أرهو واو أرهلي ويا بلا ألفا قرآن ديغان الله نايا بوركي إنكستو أبوان أنا نهين كبا أقونتيلي ujeedkan ka leeyahay haddaan idin ogeysiiyo ururkan siyeeteen lixaad asalkii koobaad asluubta la soo baray dadkana ma afxumeeyaane aadaabna waa leeyihiin mana oraayaani inan koorsa aas-aasiyee lagu adkaahaayo aan soo marnana waxa ogaaya caalamkoo idile aniga ila tariya iyo danabaa i baray waxaan aqaanaahe amaaniiga maahoo dadka wada ogaayaani haddii aaka loo qaybiye furun la aadaana ujeedkoodu waa inay cadowga soo afjarayaane arxanlaawayaashii shacbiga ku amartaag leeyahay amiirkuugu weynaan rabnaa inan afduubnaahe afartaad ishaarada murtida udubdhegeediidh afar kalena aad daba dhigo ugu dambayntii adiga afartaad ishaarada murtida dubdhigeediidhe afar kalena aa soo bandhiga ugu dambayntiiya ebel hore adduunyada ilaah wuxuu dadku uumay inay caabudaan aakhirana ku intifaacaani aakhira haddii iyan la tago la isi soo owdo oraxduna qof jooggeed agtaadoo dhow surantay islaannimo intii sheegataan nabi aqoonsaaya ashahaadkanay qiratay ee jannadii aadayso intii gaala naqatee ibliis raacda amarkiisa asalkoodu waa inay galaan naarti ololeysay waana lagu albaabaa jinnana mama arkaayaani haddaan ummaddii nebi maxamed nahay ee ahlu tawxiidka ashahaadka qira aakhirana hala xasuusnaado intaanoo saraakiilahoo naga isyaanaysan iyo aag kalee kuu jiro aanan arag waaga ixtiraam waxay mudan yihiin lama ilaawaana ee haddaan ummaddii nebi maxamed nahay ahlu tawxiidka ashahaadka qira aakhirana hala xasuusnaado wixii uurka kaa gala afka laga iftiishaa